raxmatullaahi wabarakaatu. waa saaxiibkeena cabdixakiin qabiirka. maanta muuqaalkan waxaan oga hadlayaa sida youtube-kaaga magaciisa loogu soo darsado customer URL. customer URL waxa uu kuu fududeynayaa inaad ku darsatid channelka magaciisa inaad ku qortid si oo markii linkiga channelkaaga aad ugu dirtid asxaabtaada WhatsApp-ka ama Facebook-ka si uu soo baxo channelka magaciisa halkii awli uu ka soo bixi lahaa URL oo YouTube-ka markii waxaysatid URL ku siinayaan oo markii youtube.com URL lagu siinayo baa waxay isku bedelaysaa youtube.com/youtube-ka magaciisa. qaabkaas sida ku samaysan lahayd baan rabaa inaan sharxo. marka customer URL waxa uu leeyahay shuruudaasna waxa weeye inaad haysatid 100 subscribe ama wax ka badan. haddii wax ka badan haysatid waa ay fiican tahay, laakiin haddii uu channelkaaga uu ka yar yahay 100 subscribe ma samaysan kartid customer URL. maxaa yeelay waa shardi koowaad oo lagaaga baahan yahay si aad u samaysatid customer URL waa inaad haysataa 100 subscribe ama wax ka badan. casharkii Hadaba bilaabaya la socdo wanaagsan. waxaad soo furanaysaa Google Chrome markii aad soo furatid sidan camal Google Chrome uu soo qabanaya. marka ugu horeyso halka waa inuu ku saaran yahay desktop sit. meeshan waa inuu ku saaran yahay desktop sit waa inuu kilka ku saaran yahay. haddii aadan dooranin oo ma samaysan kartid. marka halkaas waxaad ku qoraysaa YouTube feature youtube.com youtube.com/features goobaa leedahay. markaad dhihdid halkaas sawirka saaran baad kili ku siinaysaa. markaad kili ku siisid meeshan waxaad ka dooranaysaa profileka youtube-kaaga. markaad tegtid waxaad dooranaysaa setting markii aad dooratid halkan ay ku qoran tahay views advanced setting ku dhufanaysaa view advanced setting. waa kaas hadda aniga waa igu darsan yahay URL waa kaas customer URL waana hadda waa igu darsan yahay oo inaan mid kale lagama ogola inaad aad ku dirtid channelkaaga oo kaliya la rabo waana one time waayo waa hal mar oo kaliya. marka aniga hadda waa waan ku darsaday. marka waa qaab aad u fudud waaye wuxuuna kaaga saacideynayaa channelka magaciisa inaad ku qorto customer URL-ka. markii customer URL-ka aad ku qortid group walbo oo aad dhigtid linkiga channelkaaga saasa soo baxaysa. hadda aniga waa kaasa youtube.com/qabiirka official gaalkacyo waxaan ugu diray horta markii 100 subscribe aad gaartid customer URL waxa lagu muujinayaa inta ugu horeyso adiga labada xaraf oo channelkaaga ka kooban baa lagu muujinayaa. waxa lagu qorayaa oo lagu muujinayaa tusaale kale. hadda aniga markii oo 100 subscribe aan gaaray www.youtube.com/qabiirka official oo kaliya ay ahayd. marka wuxuu ka rabaa inaad ugu dambeysiisid magac inaad ugu dambeysiisid. magacaasna waa shardi maadaama aad samaysanaysid. maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay waxa laga yaabaa dad magacyada inaad simkooda tihiin. marka qofkii adiga linkigaaga youtube-kaaga dhawaa raadinaya in magacyo kale usoo baxaan. laakiin haddii magaca ugu dambeysiisid oo magacaas qofka markii horta uu qoro youtube-kaaga kaliya qofka usoo baxaya. halkaasaad kaliya ku siinaysaa sidaasaad ugu darsanaysaa oo intaasoo kaliya. marka asxaabta waa cashar aad u muhiimsan waaye oo aad u fiican.